maxamuud waxa uu dhashay isagu igu yiri 1936 aniga 38 dhashay oo 2 sano uga weynaaday 2 sano ka hor ay warkaas igu yiri 59kii wuxuu ku biiray xoogga dalka Soomaaliyeed Itaaliya loo qaad ragiisa waxa kamid ahay General Cadde iyo General Muuse Xasan ee ragiisa kamid ahay 4 sano Itaaliya joogeen waa soo noqdeen xoogga dalkay galeen dagaalkii 64 horin madaafic ah ayuu ku heestay doolow ciidanka badda oo markaas wasaarad kale hoos yimaa jiray oo wasaaradda gaashaaniga ahayn ayaa wasaaradda gaashaanigu u yeeratay si dooman ay u wadaan halkaa looga gudbiyo ciidanka webiga halkaa ku yaala doolow asagaa ii sheegay asagaa ayaa nimankaasu ku biireen doomintaasay waxay ka gudbi jireen saraakiisha iyo askarta iyo taakulaynta 1965 hadda waa dagaalkii 64 uu ka qayb galay furtaasaad ogtihiin gaashaanle Cabdullaahi Yuusuf oo hogaaminaya markaas 65 Ruusiya loo diray 4 sano aqoonta artilleria madaaficda ayuu barhay wixii soo raac 4 sano mastereedka militariga uu soo qaatay mastereedka anigu 2 sano halkan lagu qaatay shibilka 18 bilood militariga waa 4 sano iyo ku soo qaatay kacaankii hortiisa u yimid waxa ka mid noqday markaa saraakiishii 25 ka ahayd 20 xoog ah iyo 20 boolis ay ahaayeen ragaas dadkaas oo ka mid noqday 70 iyo lamadii waxa loo dhiibay maxkamadda badbaadada asagoo bila jooga ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda markaas waxay markii dawladda jirta markaas ay ku dhawaaqday 22 Oktoobar 72 dalku inuu anti wadaag qaatay saraakiil ciidamada saraakiila loo sameeyay anti wadaagaas yani fulisa oo ka shaqeysa anu waxaan ahay ninkii loo magacaabay ciidanka badda inuu siyaasadda fuliyo siyaasaddu dhibka hadda u taqaanin ma lahayn siyaasadda waxa loola jeeday wixii dawladdu go'aamisay in la fuliyo adiga inaad fikirta lagama rabo golihii sare maxaa ka soo baxay golihii wasaaradda maxaa ka soo baxay golihii hebel maxaa ka soo baxay intaasaad ciidanka u sheegaysaa dadaalka dawladdu hayso inta uu nala jooga bilxaqiiqa ciidanka badda adoogeedii ahaa wuxuu ahay ninka kaliya oo la taliyaasha nala joogay Ruuska waxay yiraahdeen nagu fuli jiray runtii annaguna wax badan oo faa'iido ah ayaan ka helnay ciidamada kale runtii ayaan ka helnay aniga maalan siyaasadda markaan tagay howlgelinta la ii dhiibay nin korneyl ay la joogana laba xidiglaanahay korneylkaas laakiin anu waa ka faa'iideysan jiray nin weyn oo oday ah markaan tagay akademiyada Ciraaq maxaa la yidhaahaa shahaado lamaad lagu qaadahayo ustaata baashoore bilxaqiiqa wax badan oo badan la iima kordhin wixii ay ii bareen aan ka bartay nimanka korneylada oo la taliyaasha ah ayaa 90% ay ahayd geelle waxaan rabaa inaan hal walax ka sheego hamiin anigoo ah maaragtay heeganka saaran ayuu yimid eridda bannaanka halaygu yeero sarkaalka heeganka anaa laygu yeeray waa ila baxay dekada uu soo rajiyay warba ii sheegay waxba ii akhriyay la rabo in la qabto markaas wuxuu ugu yiri markaan kala tagay waxaan u soo gali waayay xerada mataqaan maya dhar shibil aan ku jiro hadda waa 4 saacad oo kulli askartu shibil ku soo gasho intaas wuxuu diidan yahay taliyuhu inuu dhar shibil xerada ku soo galo oo nidaamka loo garto inuu nidaamkii bedelay sidaas horta ku hay nidaamka
annaga waxaan ahay saraakiisha aad iyo aad sanad la arkaba loo qiimeeyo qiimada koobaan qaadan jira markii dambe dhowr waaxa layga soo bedelo waaxda ciidanka lay keen 5 niman iyo xushay ayaan soo gashada qolkana irida waxaan ku xirtay nalaan surta nal guduudan hoostana waxaan uga dhigay nalkaa guduudan inta uu shidan yahay cid ii soo geli karta ma jirto marka ciidanka dhibkaa ka bata waa ogtay waxaa la rabaa wixiisa in la iska diyaarsho maalintii xigta abaanduulaha ii yeeray wuxuu yidhi saaka waxaa yimid taliyaha xooga ciidanka badda waa geelle madaxweynaha uu ii yeeray yidhi xalay war geelle ninka faarax qaraya waa yaqiine nalow shitay 3 gudahay kula jirtaa loomana geli karo wuxuu ku hayna minugi naga hubyow yidhi waxaan ku yidhi warsaa noo sheegaya anaa amrow yidhi inuu nalka shito madaxweyne saas anaa amree ogaabo horta geelle ninkaasuu ahay ciidanka badda intuu joogay intuu wax ganaaxay sanadkii hal ma ganaaxi jirin ninkaa laga baqi jirood maqlaysiin waxba ma ganaaxi jirin nin baariya cadaaladda ku fiican runtii dadka maslaxa iyuu ahaa jiray aad iyo aad uu akhlaaq fiicnaay uu sharciga ugu dadaali jiray nin qaramo ahay nin qabiil ma ahayd aad iyo aad shuruuddii qaarannimada kulligeed ninkaas ayaa haystay maantoo kale inaan xusno oon ku dayanno oon sheegno wax weyn bay noo tahay weliba marxaladda aanan marayno in laga dhigto tusaale oo saraakiishu u gudbiso askarteeda aad iyo aadaa loogu baahan yahay